wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Cawaale Ibraahim Shirwax oo weheliyay wasiirka ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland mudane Maxamed Axmed ayaa maanta kulan la qaatay xubno ka socda wadamada Soomaaliland ka taageera mashaariicda horumarineed ee laga maalgeliyay sanduuqa horumarinta Soomaaliland waxaana kulankaasi laga hadlay arrimo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa mashaariicda horumarineed ee ka socda gudaha Soomaaliland iyo sidii loo dardargelin lahaa fulinta mashaariicdaasi oo hadda gabagaba ku dhow kadib markii kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulankaasi wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Cawaale Ibraahim Shirwax waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta halkan waxaan isugu nimidnay kulan deeq bixiyaasha ka socda wadamada Ingiriiska iyo Holland inaga caawiya mashaariic badan oo ay ka mid yihiin mashaariicda SDF mashaariicda oo qaarkood gabagaba yihiin kuwa kalena aan filano inay bilaabmaan dhawaan marka dadkan deeq bixiyaasha ah waxaan uga warbixinay halka wadankeenu xagga horumarka uu taagan yahay iyo inaan waxyaabaha priority-ga u ah ama u ah in dawlad ahaan aan horumarino marka waxyaabo badan way nala qaateen waxaan filanaa marka bilaha soo socda in mashaariicda ay iyaga laftigooda priority ah inaan ka wada shaqeyno wasaarad qorsheyn ahaan waxaan markaa diyaarinanaa kala horumarintii mashaariicaha la hirgelinayo taasoo sahli doonta in horumarku markaa isla jaangoonaado oo wasaaradaha kala duwani ay kala horumarinta wasaaradda qorsheyntu dejinayso ay implement gareeyaan ama ay fuliyaan marka wada hadalkani si fiican buu noogu dhamaaday waa discussionno wada hadallo muddo badan qaata qaarkood aanu wadanka Kenya ku yeelano qaarna aanu halkan ku yeelano marka waxaan filanaa in aan ku dhiirigelino filanaa in mashaariicdaasi hirgasho aadna waan ugu mahadnaqanaa waxa kale oo arintaasi si fududeeyay doorashooyinkii aan galnay oo aad u soo jiitay wadamada waxay nagala qabta xagga horumarka marka intaasan kusoo gabagabeynaya wad mahadsantiin masterankas oo ku hadlayay afka wadamada qaaraanka iyo Soomaaliland oo kulankaasi qayb ka ahaa ayaa sheegay inay wadaan dadaalo loogu jiro sidii loo fulin lahaa mashaariicda horumarineed ee laga maalgelinayay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF sidoo kalena waxa uu sheegay masterankas inuu gabagabo ku dhow yahay wajigii koobaad ee mashaariicdaasi laga maalgelinayay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF isla markaasna hadda la wado sidii loo bilaabi lahaa wajiga labaad ee mashaariicdaasi laga maalgeliyay sanduuqa horumarinta Soomaaliland